Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardada Soomaaliyeed waa salaamantihiin meel walba dunida joogtaan waa macallin Daahir Dictionary kuna soo dhawaada cashar cusub cashirkan maanta waxaan qaadanaynaa 5 ways to say goodbye 5 ways to say goodbye 5 ways shan qaab to say aad ku dhehaysid goodbye mac salaam okay shan qaab aad ku dhehaysid goodbye mac salaama marka arabtid inaad qof kale ama akal tagtaan okay marka shantan qaab waa shanta qaab ee ugu badan dadka ajaanibta ah markay rabaan inay kala tagaan ay u adeegsanayaan goodbye ahaan mac salaama ahaan meel walbana waad ka arkaysaa marka ama waad ka maqlaysaa TV-yada ama filimada marka dadka ay kala tagayaan okay if you ready let's jump right into the lesson haddii aad diyaar tahay cashirka aan hore u guda galno jumlada koowaad waxaa waaye take care mac salaama take care mac salaama take care mac salaama take care mac salaama u adeegso marka qofka aad kala tagaysaan oo laga yaabo isbuuc kadib aad is arkaysaan haddaba ha u adeegsan ereyga take care mac salaama ahaan haddii aad qofka ay is arkaysaan isla maalintaas ama maalinta xigta take care u adeegso qof ugu yaraan isbuuc aad kala maqnaanaysaan okay take care okay jumlada labaad waxa waaye see you later see you later see you later is aragti dambe 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 jumladan u adeegso qof isla maalin dambe aad is arkaysaan ama isla waqti dambe tusaale ahaan hadda waxaa isdhahdeen see you later waxaa laga yaabaa galabta inaad haddana markale is aragtaan oo adeegsan kartaa see you later ama maalinta xigta tusaale ahaan qofka isku shaqada aad tihiin hey man see you later is aragti dambe waxaa laga yaabaa inaad maalinta kale is aragtaan marka u adeegso see you later jumlada kale xigta catch you later catch you later catch you later iyo see you later waa isku mid catch you later is aragti dambe catch you later is aragti dambe catch you later is aragti dambe u adeegso qof aad hubtid inaad la kulmi doontid mar kale isla maalinta xigta ama saacada kadib catch you later is aragti dambe jumlada kale see you soon see you soon see you soon see you soon waa is aragti dambe see you soon is aragti dambe oo weliba dhow see you soon u adeegso marka aad arkaysaan qof saacada kadib jumladan see you soon waxaa waaye is aragti dambe min saacada kadib ama maalin kadib see you soon u adeegso okay jumlada ugu dambeysa waxaa waaye have a good day have a good day maalin wacan ama maalinta ha ku wacnaato have a good day waxaa kaloo dhigi kartaa have a nice day waxaa kaloo dhigi kartaa have a wonderful day maalin wacan intaas waxaa laga wadaa maalinta ha ku wanaagsanaato tusaale ahaan have a wonderful day have a good day have a nice day waxaad adeegsanaysaa qof walba markaa kala tegaysaan okay have a good day maalin wacan so arday waxaan filayaa inaad ka faa'iidaystay 5 ways to say goodbye inaad isticmaali doonto till next time me and the rest of my team assalamu alaikum as always happy learning English thank you see you in another video